subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaargarooba wararkeena subaxnimo waa 30 Diseembar 2020 waana subaxnimo Arbaca saakeena saaxiibayaal wararkeena kuwada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah kulamo gooni ay shiraan loo kala kicinaya xalay ka dhacay magaalada Garowe gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo kulan waqti badan qaatay ku wada yeeshay magaaladaasi maxay ka wada hadleen maxaa laga yiri arinta la xiriirta khilaafka xildhibaanada gobolada waqooyi kulamada gaargaarka ee shirka ka dhacay Garowe ayaan wax badan aan ku eegi doonaa maanta xildhibaanada waqtigooda ilaaday ee baarlamaanka Soomaaliya muddo 6 sano ayay u kordhiyeen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka sidee sharci ku tahay muddo kordhinta sidee loo maray warbixino ku saabsan shirka madasha aragti wadaaga ee macadka Heritage oo maanta ka furmaya magaalada Garowe ee ajendaha shirkaasi Daahir Maxamuud Geelle oo la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweynihii hore Puntland xog ku saabsan shirka halkaasi ka dhacaya dowladda Soomaaliya waxa ay sheegteen beesha caalamka ay u weydiisanayso miisaaniyad dhaqaale ee loogu talagalay arrimaha doorashooyinka koox hubeysan waxay dilal ka geysteen deegaanka Bacadweyn waa deegaanka Bacad ee deegaanka Bacad ee degmada Matabaan iyo Hiiraan ka tirsan xiisad dagaal oo saaki ka taagan inta u dhaxaysa Matabaan iyo waliba magaalada Beledweyne wararkii ugu dambeeyay xiisadaha dagaal ee ka jira gobolka Hiiraan ayaan eegi doonaa dowladda Itoobiya waxay gacanta ku dhigtay gantaal ay lahayd kooxda TPLF Iran waxay bilaabaysaa tijaabada talaalka fayraska corona oo dalkaasi laga sameeyo qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona warkeena subaxnimo saaxiibayaal oo ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka xiisadaha colaadeed ee ka jira magaalada Muqdisho iyo shirarka iyo kulamada Garowe ka soconaya ayaa wax badan diirada ku eegi doona kamid noqo saaxiibada nagu xiray channelkeena subscribe inoo dhig gambareelkana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada iyo dhacdooyinka gaarka halkan aan ku baahino daawadayaal intaas waxaynu wararka ugu waaweyn faafahinta wararkaas waxa Muqdisho ka soo dirtay wariyayna ku sugan caasimada dalka kulamo gooni ayaa xalay ka dhacay magaalada Garowe iyadoona gudoomiye Cabdi Xaashi oo la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo xildhibaano waxa faafahinaya war soo saareena subax Maxamed Abuukar Dabash caasimada Puntland ee Garowe waxa ku sugan dhamaanba dhinacyada Soomaalida ee markan ku tartamaya loolanka siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka magaaladaas ayaana lagu wada inuu ka qabsamo shirka ka horse waxa soconaya kulamo gaargaar ah oo xubnaha isku wada arkayeen magaalada Garowe xalay magaalada waxa ka dhacay kulamo gaargaar ah oo gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi oo la qaatay xubno ka soo jeeda gobolada waqooyi oo qayb uu ka yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo si gaar ah kala hadlay arrimaha ka jira gobolkaasi Gado xiisada ka taagan iyo waliba doorashada ee dalka ee heshiiska lagu gaaray inay ka kala dhacaan labada magaalo ee Kismaayo iyo waliba magaalada oo qayb ka mid ah gobolkaasi Gado sidoo kale gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa la kulmay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuled Qadar inkastoo ila lagu kalsoonaan karay risaalo u sheegeen in dhinacyada loo kala dab qaadayo lagana yaabo in heshiis laga gaaro khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka gaar ahaan hanaanka loo wajahayo kuraasta gobolada waqooyi oo maalmihii dambe khilaaf xooggan ka taagnaa Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa warbaahinta u sharaxay natiijada kulamada gudoomiyaha aqalka sare oo la qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood xubnaha musharaxiinta ay waliba dooda khilaafka ka jira kuraasta gobolada waqooyi oo loo kala dab qaadayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuled Qadar oo ku sugan magaalada Garowe iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo asna magaaladaas ku sugan labada loo kala dab qaadayo sidii loo wajihi lahaa xalka ugu dhow ee ku aadan hanaanka xildhibaanada gobolada waqooyi waxaan markaa aad iyo aad u faaqidnay dareen isku mid ah oo aanu ka qabno arinta doorashada oo muxuu ahaa la dareensan yahay in aan dawladda ama madaxweynuhu runtii aanu rabin doorashadu inay si sax ah u dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo loo baahan yahay in la saxo mugdiga ku jira ama ha ahaadaan gudiyada dawladdu ay xushay ama ha ahaadaan habraac la doonayo in loo maro doorashada dadka doonaya Soomaaliland ka soo jeeda oo ay tahay sida sharciga ah ama xaqiiqada ah xubinta ugu sareysa la doortay gobolada ka soo jeeda inuu yahay gudoomiyaha aqalka sare oo ay tahay inuu madax banaanaado isagu inuu doorashooyinkaasi uu maamulo sidoo kale waxaan isla soo qaadnay arinta gobolka Gado oo iyaduna kamid ah maamulka ama dawladda Jubbaland
oo madaxweynaha ka yahay mudane Axmed Madoobe iyadana ay tahay si xaqiiqa oo dhab ah in loo madax baneeyo maamulkaasi isagu inuu doorashada goobta ka dhacaysa si buuxda isagu u maamulo dareen isku mid aanu labada dhanba runtii arrintaanu ka cabirnay waxaanad moodaa in arrintaasi isku aragti laga ahaa oo runtii shirka iyagu arrimaha ayuu ku saabsanaa dee shirku waxa uu ka mid yahay wadatashiga socda oo ay qaybaha kala duwan iyo siyaasiyiinta kala duwan iyo madaxda kala duwan ee qaranka halkan isugu timi ay si gooni ay u kulmayaan hadda dee waxaanu la kulanay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam baan la kulanay waxaanu la kulmi doonaa madaxweynayaasha stateska kale ee jooga waxaanu kulan kale oo isaguna annaga oo musharaxiintii xilka madaxweynaha iyo una dhexmari doonaa qaybahaasi hadda aan sheegay markaa waxaa jira shirdacoodyo runtii socda oo ka horeeya qaarkoodna ay ka dambeeyaan qaarkoodna inta shirku uu socdo uu dhici doono waayo waxaa loo baahan yahay shirkan aad iyo aad buu muggiisu u culus yahay Soomaaliya oo dhan baa eegaysa indhaha beesha caalamka oo dhan baa ku soo jeeda rajo weyn baa laga qabaa runtii inay go'aamo iyo talooyin dhaxalgal ah oo dalkan sidii lagu badbaadin lahaa ama lagu samata bixin lahaa oo ka soo baxo ayaa runtii laga qabaa qayb ka mid ah shirka ka furmaya magaalada Garowe ayaa dowladda federaalka waxay u dirto halkaas kaga qayb galaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka inkastoo gudoomiye Cabdi Xaashi maalmihii dambe khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyay dowladda federaalka khilaafkaas ayaana salka ku hayay arrimaha la xiriira doorashooyinka garan kuraasta gobolada waqooyi xildhibaanada waqtigooda ka dhamaaday ee golaha shacabka ayaa sanado badan ku kordhiyay mudaxileedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxaa faahfaahinaya waryaheena Maxamed Bootaan Yuusuf xildhibaanada waqtigooda ka dhamaaday ee golaha shacabka ayaa muddo kordhin u sameeyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kaas oo waqtigiisu isku ekaa bisha Juulaay ee sanadka 2021 inkastoo laga tashaday hadda aan looga fadhin wax howl doorasho ah haddana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka dastuurka dalka wuxuu dhigayaa in mudaxileedkiisu yahay 6 bilood markay dhamaatana aan loo cusboonaysiin karin qodobka 9aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dalka oo ka hadlaya mudaxilheynta guddiga ayaa dhigaya mudaxilheynta guddiga doorashooyinka qaranka waa hal xilli oo dhan 6 sano oo aan la cusboonaysiin karin dad badan waxay isweydiinayaan sababta guddiga oo ay harsan tahay 6 bilood isla markaana arintiisu oo go'aan ka gaari karo baarlamaanka dambe ee 11aad loo gaarsiiyay muddo kordhinta 6 sano oo kale ayaa loogu daray guddigan oo ay hogaamiso Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliimiyare waxaana la sheegay in arintaas ay u ololeynayeen xildhibaano siyaasad ahaan aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay guddiga xeerka lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee lambar 4 la ansixiyay 2 bisha Abriil 2015 iyo cusboonaysiin mudaxileedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaa ansixiyay wadar ogol intii soo xaadirtay oo 145 ah waxa diiday waa eber waxa ka aamusana waa eber sidaas ayuu guddigu 6 sanadood oo kale ugu shaqeynayaa doorasho qof iyo cod ah ayadoo diyaarsan markii xilliga dambe insha Allah Ilaahayna gaarsiiyo wixii nool inaysan jeedjeedsi iyo xaggay ka dhiman tahay iyo waxbaa gadaal laga jira iyo inaysan maaragtay insha Allah dib dambe u dhicin waxaan mar labaad ammaanayaa baarlamaanka sharafta leh oo ka damqaday dadka hawsha badan soo galay qaranka u soo shaqeeyay wax badan oo la taaban kara qabtay ayna muuqdaan waxay qabteen haddana aan rajaynayno inay insha Allah ay shaqadaasi laba laabaan marka waxaan rabnaa in laga tiro meesha ma loo kordhin karaa maadaama guddiga doorasho ayna qabanin muxuu ahay ciladana iyaga xagooda ayna ahayn in loogu qoro in loo kordhin karo muddo 6 sano muddada 6 sano maalintii aan u ansixino ayay ka bilaabanay shaqadoodii ayna siday noogu sii wadaayeen guddigii oo najaxsan oo khibrad leh oo muxuu ahay siminaaro badan soo qaatay oo shaqaalahooda iyaga ay isku tababarteen oo muxuu ahay dhinac walba ka dhisan sidoo kale Xaliimiyare ayaa la sheegay inay si hoose waayahan ugu ololeynayso in guddigeeda waqtiga loo kordhiyo inta aan kala dirin baarlamaanka 10aad ee waqti ku dhamaaday oo aad ugu dhow fila Soomaaliya
kulankii loogu codeeyay guddiga waxaa soo xaadiray 145 xildhibaan kuwaas oo dhammaantood u codeeyay in guddiga ay hogaamiso Xaliimiyey 6 sano waqtigiisa loogu kordhiyo sidoo kale waxaa kulanka si aqlabiyada loogu ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020 shirkii madasha aragti wadaaga ee macadka Heritage ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. dhanka kale musharax Daahir Geyle ayaa kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyadoona iyo waliba madaxweynihii hore ee Puntland. waxaa wararkaasi noo haya Cabduqaadir Jakarta. shalay gelikii dambe ayaa qorshe u ahaa in magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal uu ka furmo shirka madasha aragti wadaaga macadka Heritage ay yeeshay sabab la xiriira howlka lagu qaban lahaa shirka oo dadka lagu casuumay qaadi waayay oo u baaqday. maanta Arbaca ayaa la filayaa in magaalada Garowe uu ka furmo waxaana ka qayb galaya gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada sida madaxweynaha maamulka Jubbaland, madaxweynaha Puntland oo shirkaasi martigelinaya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug, halka shirkaas ay ka baaqsadeen madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. xubno ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha oo hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale dad kale oo shirkaas lagu casuumay oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka. shirka oo sanadkiiba mar lagu qaban jiray dalka Djibouti ayaa markii ugu horeysay lagu qabanaya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Garowe, waxaana muddada 3 cisho oo socon doona sanadka looga hadlayaa xasilinta dalka ee dhanka amniga, dhamaystirka dastuurka qabyada ah, qabashada doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sanadda 2025 iyo galeelida nidaam federaal oo shaqeynaya. inta badan madaxda qaybgalaysa shirka ee ku sugan magaalada Garowe ayaa xalay waxa ay yeesheen kulamo gooni ah ay uga arinsanayeen xaaladda dalka iyo marxaladda kala guurka ah ee hawaatan lagu jiro. musharax Daahir Maxamuud Geyle kana mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee shirkaas lagu casuumay ayaa ka hadlay rajadiisa ku aadan waxyaabaha ka soo bixi kara shirkaasi. dadka Soomaaliyeed si waxa ka muuqda farxad iyo rayn iyo inay dad walaalo ah oo wanaag ka muuqda. waxaan isleeyahay ajandaha hadda Soomaaliga waaye dadkii wajiyada arkayaan runtii aniga waxaan qabaa inaan ku kordhisi karno waxyaabo fiican dadkeen inaan wax wanaagsan maqashin karno, inaan wax wanaagsan tusi karno, inaan walwalka ay ka qabaan deganaanshaha dalka ka dhacdo aan meesha ka saari karno. dadkeen anagu haddaan ay murashaxiinta waan ka soo dhalaali doonaa, walaalaheena dawladda ka socdayna waan ku boorin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. kulamo gooni ayaan la yeelanaynaa. dalku waa dal aan wada leenahay, dadkuna waa dad aan mas'uuliin u wada nahay. waxaan rabnaa xilli cusub inaan u gudubno. waxaan rabnaa qaybaha kala gedisan ee bulshada, ganacsatada iyo bahda waxbarashada inaan bahda siyaasadda ka hoos noqon, isu caqli celino. Soomaalidu waxay nooga tashay inay naga helaan. waxaan u ballan qaadi karnaa qof ahaan inaan qayb mugla ka noqdo in Soomaaliya waxay isku waafaqdo waalidiinta iyo waayeelada iyo da'yarta Soomaaliyeed walwalka ay qabaan meesha ka saarno. qaybta nooga aad waa ka soo dhalaal. aslan markii la wada hadlay hadda waa wax khilaafaad ay jiraan. siyaasadda khilaaf inuu dhaco muhiim ma aha, problema ma ahan, laakiin waa in la xallin waayo. waxaan rabnaa khilaafkii oo la xiriiray gaar ahaan doorashooyinka inaan wax ka qabanno, inaan ka heshiino, inaan ka wada hadalno si qayaxan looga hadlo. khilaafka inuu jiro problema, laakiin problema waa in laga heshiin waayo maamul goboleedyada qaarkii. dhinaca kale musharax madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Geyle oo ka mid ah wufuudda ku sugan magaalada Garowe ayaa halkaas kulamo gooni ah kula qaatay madaxda kala duwan halkaas ku sugan. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka mid ah xubnaha uu la kulmay madaxweynaha Puntland, waxaana kulamada ay ahaayeen mid hordhac ah shirka madasha wadaaga macadka Heritage iyadoo xaaladda dalka iyo sida arrimaha doorashooyinka iyo sida dalka uga dhici leh doorasho la isla ogol yahay looga hadlay. waxaan caawa hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Puntland haddana xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Senator Cabdiraxmaan Maxamed Xamuud Froole. waxaan ka sheekaysanay marxaladda adag ee kala guurka ee dalka maraya ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka musharax Daahir Geyle. wuxuu intaa ku daray Senator Froole waa ida Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka geed fadhiga dowladnimada Soomaaliya, wuxuuna kaalin mug leh ka soo qaatay inuu dalka ka baxo marxaladda kala guurka ayuu sii raaciyay. kulamada ayaa weli waxay ka socdaan magaalada Garowe iyadoo saacadaha soo socda la filayo inuu shirka madasha aragti wadaaga ee macadka Heritage
uu halkaas ka furmo. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay beesha caalamka ay weydiisatay miisaaniyad dhaqaale oo loogu talagalay arrimaha doorashooyinka. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maalmihii la soo dhaafay shirar gooni ah waxa uu la qaadanayay beesha caalamka isagoona kala hadlayay sidii loo heli lahaa dhaqaale ku filan doorashooyinka Soomaaliya. wasiirka ayaana beesha caalamka ka dalbaday dhaqaale lagu maareyn karo doorashooyinka dalka. maalmahan oo dhan waxaan ka shaqeynaynay oo budget galan ku jira waxa weeyaan wixii dadka laga soo ururin loogu talagalay laga soo ururiyo iyo inana waan ku darnay. waxaan filayaa 13 14 meelahaas baa ku jira. marka waxaan imika wadnaa waxa weeyaan the international community ama beesha caalamku inay nagala qayb gasho si ayaguna bar u daboolaan kharashka ku baxaya doorashooyinka horena waan ugu heshiinay. marka berrito shalayto zoom baan lahayn international community beesha caalamka waxaan doonaynaa markaa inaan isla soo afjaro waxaa noqonayo koosku noqonayo waxa baahidu noqonayso dibeetana hadhow u galoonina idinku maxaa idinku qabanaysaan maxaa idinku dabooleysaan anagu maxaan daboolaa. marka ilaa meelahaas isla noqonaysa 14 15 bay noqoni way ka badnaan lahayd hadii one person one vote hadii aan lahayd person qof iyo cod hadii loo leeyahay. maana maanta waxa weeyaan gabagabadii way ahayd sanadka asxaabteeda baarlamaanka anigu xildhibaan muddo ayaan soo wada shaqeynaynay runtii waxaan keenay iyo waxay ku dareen iyo waan soo wada shaqeynay. marka really runtii ma jirin wax dhibaato ma jirin. wixii aan damacnay in laga bedelana waxaan isku raacnay oo markiiba la isla soo qaatay bay ahayd. markaasi aad u fudud ayaa loo soo koox hubeysan ayaa dil ka geystay deegaanka Bacda iyadoona xiisad saaka ay ka jirto degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. waxaa ka waramaya Cali Xasan. koox hubeysan ayaa dil u geystay qof shacab ah oo ay kala degeen gaari uu la socday oo ku safrayay jidka isku xira Matabaan iyo Beledweyne. dilka loo geystay marxuumka geeriyooday ayaa ka dhacay deegaanka Bacda oo hoos taga degmada Matabaan. ciidamada ammaanka ayaa sheegay in kooxdii falkan geysatay ay ahaayeen koox u awlan qaab qabeelid isla markaana baaritaan lagu sameyn doono. deegaanka falkan ka dhacay ayaa maalmihii soo dhaafay waxaa ka taagnaa xiisad colaadeed. dhan kale faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. maleeshiyada hubeysan ayaa waxaa la sheegay inay rasaasayeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah xilli uu marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Matabaan iyo Beledweyne. inta la xaqiijiyay weerarkaas ayaa waxaa ku geeriyooday hal ruux, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhammaantood saarnaa gaariga ay maleeshiyadka hubeysan rasaasayeen. goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in dadka ku dhaawacmay weerarkaas loo qaaday dhaawacyadooda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan isla markaana dadkii ka dambeeyay falkaasi ay goobta iskaga baxsadeen. halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. markana wararka dibadda. dowladda Itoobiya ayaa gacanta ku dhigtay gantaalo ay lahaayeen kooxda TPLF-ta. ciidanka Itoobiya ayaa sheegay in ay heleen 13 gantaalo oo lagu qariyay baqaar si gaar ah loo leeyahay oo ku yaala magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray. gantaalada ayay tilmaameen ciidanka Itoobiya inay yihiin noocii ay TPLF-ta u adeegsatay weeraradii ay ku qaaday magaalooyinka Bahar ee ismaamulka Amxaarada iyo magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea. waxa ay sheegeen ciidanka in 7 gantaal laga isticmaalay oo ay heleen sanduuqii laga bixiyay. guud ahaan dhageystayaal waa naga intaa warkii subaxaad ka dhageysanayseen idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho.